qaar ka mid ah aqoon-yahanka iyo waxgaradka Somaliland ee ku dhaqan dalka Finland ayaa ka hadlay xaaladda Somaliland oo ay ugu horreyso xorriyadda saxaafadda madaxa bannaan oo caburinteeda xukuumadda Somaliland waayadan dambe ku howlanayd iyo heerka qabyaaladda oo waqtiyadan dambe sare u kacay waxayna yidhaahdeen asla saxaafaddu waa seef qofka israel seef way goysaa xukuumadda Axmed Silaayo waxa ugu weyn ee cabashada ka taagan waa saxaafadii weeyaan ugu horeeyo Home Cable TV iyo qaar kale ilaamka xiran aniga siday la tahay horta siyaasigu amba Somaliland ha joogo amba Afrika ha jooge waa inuu bambaanadu gacanta ku haysto ama shacabka ku soo dhex tuuro waxaad arkaysaa xubno golaha wasiirada ugu miisaanka culus oo meelay shaashadihii saxaafaddu haysato ka goodiyay haddaanu nahay reer qurac reer bilcil iyo wax qalbigu ka xanuunayo oo haddana isla markaaba oranaya rag baa ka hadlaya qabyaalad isaguna gacantu kula jira taas waa waxa aad iyo haddana qurbo jooga niyad jabsanahay amba qabyaaladda lagu sheegay wadankii markastoo wax yar dhacaan ba maaragtay aad u soo xoogeysta taasna waxay ila tahay aniga siyaasiyiin baa dibadda ka riixaysay waxaan kula talin lahaa siyaasiyiinta in shicibka walaalaha ah dhibta laga daayo rag baa gabood falladii ka dhacay waqtigii hore 20 sano ka hor maanta meel madaxweynuhu fadhiyo kaga goodiyaya hebel dagaaladii ehliga kama qayb gelin in siyaasi maanta la taabto uu talaaya yiraahdo shicibkii soo doortay ma geeyo Aadan Yusuf Ismaan Home Cable TV Helsinki Finland